السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشينا قيمها بدن كسو دوادا برنامجك كولانكا غاركي برنامجك كولان غارة waxaa marti ku amaantayto murashax madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo ahaa wasiirkii hore ee kheyraadka kalluumaysiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ummad badan oo Soomaaliyeedna ay wada garanayso murashax madaxweyne Dr. Soodow bismillaahi farxanahay inaad naga aqbashay inaan ku qaabilno salaam aad iyo aad baad u mahadsantahay waxa kale aan jeclahay marka hore inaan u mahad celiyo TV-ga Misk fursadda ay siiyeen inaan la hadlo dadka dunida jooga oo ina TV-ga daawada waana salaamaya dhamaantood assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا وان كقادني أنا وكهل لنا مجعودة مرشح مدحوين الدكتور عبد الرحمن مواطنين بدن الصوماليات ويكو جرنا يعني كوا بدن وحلاقي أبا إني كو جرنين كوا بدن وكو جرنا ينا وحلاقي أبا إني سنجرنين باجرون كأم شخصيات الدكتور عبد الرحمن وكم الدكتور عبد الرحمن وهاجاك وما تسنتهي هدان سكود إنا سوكوبو أنا وحن كل شيء مقالة الشيخ وقوي الصومالية kadibna waxaan imi magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaasoo dugsigii Quraanka iyo dugsigii hoose ku dhameeyay inta ka bacdi waxaan imi magaalada Muqdisho halkaasaan dugsigii dhexe iyo dugsigii sare ku dhameeyay dugsiga dhexe waxaan ka baxay iskuulka la yiraahdo Media Centrale dugsiga sarena Banaadir Secondary School baan ka baxay ilaa maadi markaan inta dhameeyay shaqada qarankan hal sano macallin noqday waagii kacaan ku jiray dadka markay iskuulka dhameeyaan dugsiga sare hal sano oo macallin ay noqon jireen marka hal sanaan macallin ahaa markaan sanadkii dhameeyay oo waajibaadkii qaranka ahayd waagaasan anigu Soomaaliya ka dhoofay waxaan tagay wadanka Mareykanka halkaas oo aan tacliinteedii ka sii waday ilaa maadi waxaan ka bilaabay jaamacadda New York ku taala oo caan ku ah ama maadada ku takhasusta xisaabaadka iyo hantidhowrka 4 sano markii aan dhameeyay waxaan ka bilaabay shaqo magaalada New York waxaan u shaqeeyay shirkadaha ugu waaweyn dunida mid kamid ah oo kuwan accounting iyo waxa la xiriira la oran jiray Coopers and Lybrand imikana qayb waxay ka tahay PricewaterhouseCoopers oo dunida dhan laga yaqaano 3 sano ku dhawaad baan halka ka shaqeeyay inta ka bacdi waxaan qaatay imtixaan iyo shahaado inaan khabiir ku ahay arimaha hantidhowrka iyo xisaabinta inta ka bacdi waxa afka Ingiriisiga lagu yiraahdo Certified Public Accountant ama Ingiriisku waxay dhahaan Chartered Accountant New York teedii baa ilaa maadi aan ka sii waday shaqadii aan ka hayn jiray bangiga dunida ugu weyn oo la yiraahdo Citibank xaruntiisa ku taala New York muddo ku dhawow 2 sanadood iyo wax la jira baan ka shaqeeyay inta kadibna bangi kale isaguna kuwa maalgashiga ama la yiraahdo investment banking oo ku yaala Wall Street iyo Mareykanka halkaas aan ka shaqeeyay la yiraahdo Solomon Brothers waxaan ka shaqeeyay muddo ku dhawaad 2 sanadood marka adigu ilaa muddo 8 sanadood ku dhawaad wax yar ka yar tahay baan New York joogay ilaa maadi waxaan shaqo ka helay bangiga dunida ee ku yaala Washington DC halkaas aan joogay muddo 15 sanadood ka shaqeeyay intii aan joogay tacliinteedii baan sii watay markaana 2 degree oo kuwa masterka ah baan ka qaatay mid waxay arimaha dhaqaalaha mid kalena waxay arimaha maaliyadda jaamacadda waxa la yiraahdo John Hopkins University waxay ku taala agagaarka Washington DC marka ka bacdina runtii waxaan ku noqday school dib intaan shaqadii aan bangiga dunida ka hayay early retirement hawlgab anoo konton jira lagu ogol yahay inaad shaqada ma hortay ka qaadan kartid oo markaana pension lagu ogol yahay nolosha inta ka hadhay markaana dib baan ugu noqday jaamacad 3 sanadood barnaamijka la yiraahdo PhD da baan bilaabay jaamacadda la yiraahdo George Mason University markaan halkaas aan ka qaatay PhD-deeda waxaan ku takhasusay arimaha la xiriira dhaqaalaha runtii maaliyadda ama monetary economics waa arimaha la xiriira bangiga dhexe sidoo uu shaqeeyo wadan dhaqaalihiisa ka qabto markaana waxaan qoray book oo ahaa thesis-keygii ama research-kan sameeyay bookgaas iyo waagaan iskuulka ka baxay waxay ahayd waagii dhaqaalaha dunidu ku dhacay crisis-ka ama akirna ama financial crisis sicir bararkii oo bay dhaqaaluhu burburi jiray dunida oo dhan soo ma garanaysid 2000 iyo waxay ahayd 8 meelahaas ahayd marka waagaasna dunida oo dhan waxay ka hadlayeen dhaqaalaha dunida oo dhan dhaawac weyn baa gaaray marka bookgan qoray oo thesis-kayga wuxuu ahaa maaragtay su'aal buu ahaa magaciisu oo ahaana research-kayga bangiyada islaamku nidaamka ku dhisan ma ka xasiloon yihiin bangiyada ribada ku dhisan marka dhaqaaluhu cakiran yahay ama crisis ku dhaco calaamad su'aalkaas aan rabay inaan ka jawaabo waxaanan ogaa oo anigu aaminsanaa in
nidaamka Islamic finance iyo banking iyadu ka xasiloo yihiin kan kale ribo iyo deynan badan iyo waxa la yiraahdo raxmaan badan iyo speculation iyo wax badan bay sameeyaan. Marka su'aashaas aan rabay inaan ka jawaabo. Dadka cilmi baaristaada waxaa ku salaysay in nidaamka bangiga islaamiga uu ka xasiloon yahay kuwan kale oo ribada ku dhisan. Marka laba wadan baan ku sameeyay daraasaad, wadanka la yiraahdo Malaysia iyo wadanka la yiraahdo Bahrain. Markaana muddo 15 sanadood baan bangiyaal labada wadanba ka jira. Hadda Bahrain oo kale bangiyaashii islaamka ahaa kuwa waaweyn kuwa yar iyo kuwii ribada ahaa kuwa waaweyn kuwa yar iyo kuwa tartamaya baa markaa haddaad research sameynaysid waa in uu wax isu dhigma aad eegi kartaa. Marka kuwaasaan darsay sidaas la wadanka la yiraahdo Malaysia. haddaan kuu soo ururiyo buugii researchkiisa xooggiisii waxa inkastoo wadanka Bahrain aad iyo aad xoogaa bangiyada Bahrainiyiintu aad bay uga maaragtay conservative maaragtay siday u maamulaan ribo badan iyo ma qaadan inkastoo kooda ribadu yahay. Marka waa isku soo dhawaadeen labadooda xasiloon ahaan, laakiin Malaysia markaan eegno kuwa islaamiga ahaa baa ka xasiloona ka loo eego. Marka intaas marka aan runtii researchkii ka qoray alaa xaal wadanka waxaan ku soo noqday 2012 waagaan buugaan qoray maaragtay muddeerna joogay. waagaas muddo 30 iyo wax la jira sanadood baan Soomaaliya ka maqnaa intaan Mareykan joogay. Markaana waxa aan go'aansaday inaan reelo wadankii ku noqdo oo aan maaragtay wixii aan soo bartay cilmi iyo khibrad iyo maaragtay la wadaago. Okay doctor, adoo fursadahaas waxbarasho oo tirada badan helay oo ka soo bilowday Sheekh ilaa iyo New York isdaba yaalo duni badanna aad martay maxaa kugu dhaliyay inaad 2012 dalka ku soo noqoto oo aad isku soo taagto xilka madaxweynaha 2012 sidoo kale waxa isku soo taagtay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda? waa mahadsan tahay. runtii saan hore kuugu sheegay anigu waxaan soo arkaa Soomaaliya dadka ugu nasiibka badan baan soo arkaa. markii aan tacliin fiican oo aad iyo aad runtii heerkeedu u sareeyo baa Soomaaliya lahayd waagii kacaan ku jiray oo wadanku aad u fiicnaa. tacliintaas baa aniga asaas u ahayd markaan Mareykan tagay guulahan ka gaaray iyo ilaahayna gacan ugu siiyay. marka tacliintaas waxay ahayd tii aan ku gaaray waxaasoo dhan oo khibrad iyo markii dambana aan awood u helay anoo konton jira in aan retirement sameyn karo. nolosheeda inta ka hadhay aniga qoyskaygana ana ka walwalayn maaragtay nolosheeda. marka waxaan dareemay wadankaygii baa layga baahan yahay. waxaan ogahay rag badan oo aniga asaageeya oo aan isku maaragtay isku fillahay ama isku group ahayn. waxaa laga yaabaa inay qotliyoomkoodii iyo fursado ilaahay darteed inayna awoodi karin inay wadankii 2 sanadood ama 3 sano iska tagaan oo dhulkii soo maraan oo waxaas oo dhan sameeyaan. marka anigu maadaama aan nasiibka haystay waxaan dareemay in aan waqtigeyga inta ka hadhay intii tabartayda inaan wadankii waxa ii sameeyay oo aniga runtii iyo fursadda inaan waxaan u qaban karo u qabto aan aniguna aan haysto fursadda. marka sidaasaan ku runtii ku soo galay inaan murashax noqdo maaragtay sidaas aad u weyn. shicaar waxaad degsatay ama iclaan ah isbedel doonka dhabta ah. isbedel doon shicaarka ee hore u jiray oo dad badan baa adeegsaday, laakiin isbedel doonka dhabta ah weedhaas maxaa ula jeedaa? waxaan ula jeedaa runtii dadka Soomaaliyeed oo daawanaya si ay uga warqabaan burburkii wadankeenu markuu maaragtay nagu dhacay dagaalkii sokeeye. dawladdii ugu horeysay waxa lagu soo yagleelay carta meesha la yiraahdo 2000 sanadku markuu ahaa xukuumaddii Cabdiqaasim Salaad iyo Cali Khaliif Galeed ay ka ahaayeen midna madaxweyne midna prime minister. markaasay bilawnay inuu burburkii 91 nagu dhacay ilaa 8 ama 9 sanadood buu burbur iska jiro oo wadanka wax maamula ka jiray. marka dawladdii laga soo bilaabay carto dawlad ku meel gaar bay ahayd. marka haddana joogno ilaa 4 dawladood baa soo maray. dawladdii Cabdiqaasim, dawladdii Sheekh Shariif, dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud iyo iminka oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii madaxweynaha waqtigiisii hadda dhamaaday. marka 4 dawladood waxaan ku jirnay inkastoo labadan ugu dambeeyo Xasan Sheekh iyo Farmaajo la yiraahdo waa dawlado joogta ama permanent. kuwii hore waxa la oran jiray transitional government, dawlado ku meel gaar ah la oran jiray. laakiin xaqiiq ahaan hadda doonisid waa magacuyaal in la leeyahay dawladahani waa joogto ama waa dawlad buuxda. wali ciladaha iyo nabarada nagu yaalay iyo dhibaatooyinka nagu yaala wali waxaan ku jirnaa runtii dawladdii dhabtaheed oo ummadda Soomaaliyeed ka saari lahayd dhibaatadii ku jirta wali mayna sameeynin. marka aan leeyahay maxaan u dan leeyahay isbedel doonka dhabta markaan leeyahay waxa weeyaan
ilaa anigu kolba aragtideeda saan u arko ilaa 5 arrimood oo kale baa arrimo waaweyn oo soo noqnoqda oo 4 xukuumadoodba arrimaha maaragtay inay wax ka qabtaan ahayd anigu ra'yi ahaan waxay ugu muuqataa in aan runtii hore waa loo socday oo maaragtay qoladii kale wax yaare dhaantay laakiin dhibtii dhabta ahayd oo ummadda Soomaaliyeed la rabay xal in loo helo giddigood inayna wax ka qaban baan u arkaa marka maxay salka ku haysaa anigu kolba aragtideedu siday tahay anigu waxaan u arkaa 2 kalmadood baan ku soo koobi karaa dhibaatada Soomaaliya haysata hoggaan xumo ama hoggaan la'aan baan u arkaa maxaan uladan leeyahay hoggaan xumo ama hoggaan la'aan waxa dadkeenu siday ka warqabaan madaxweyne kasta marka la doorto marka uu kursiga fadhiisto markiiba waxa uu bilaabaa qorshe ah sidee baan dib la igu soo doorto aan ugu soo noqon lahaa madaxweyne la igu soo dooran lahaa taasina waxa ay keentaa in ay marka arrimihii kale waaweynaa oo wadanka hor yaalay oo la rabay go'aamo adag oo laga yaabo dadka wadanka dhibta ku haya inay dhibsadaan laakiin daruuri ah oo loo baahan yahay in wax laga qabto in marka maadaama damacoodii siyaasadeed ka hormarsan yahay oo budnaanta koowaad yahay inay soo noqdaan waxay caqabad ku noqotaa inay gaadhaan go'aamo adag oo masiiriya oo la rabay wadankan in runtii wax laga qabto maxaa ka mid ah maaragtay kuwaas aan ka hadlayo ta ugu horeysa dadku ay ogyihiin waa amniga Soomaaliya ilaa hadda waqtigan aan joogno amnigeedu waa arrin runtii aad iyo aad ugu adkaatay wadankeennii inaan wax ka qabanno waxaan u maleynayaa 12 sanadood ciidanka Amisom baa hadda inala jooga markaana weli ma aragno runtii wax macnale oo intay nimankaasi ka baxaan wadanka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo amniga sugi karo wadanka amnigiisa iyo xuduudihiisa waxa soo dhan marka ciidankeena waxaan u dhisi weynay oo arrimahaas oo dhan aan u arkaa runtii in ay madaxdii markaa joogtay madaxweynayaashii jooga ciidanka sidii loo dhisi lahaa in ciidan midaysan oo sidii loo dhisi jiro hal meel laga xukumo oo wadanka oo dhan maaragtay dadka laga soo qoro oo markaa sidii hore aan u soo dhisnay ciidamada Afrika ugu wanaagsan baa lahayn waagii kacaanka marka way dhaqaanaa ciidan sida loo soo dhiso laakiin wixii loo baahnaa iyo maaragtay tababarkii iyo daryeelkii iyo lacagtii u baahnaayeen iyo waxaas oo dhan lama siinin marka arintaasi wali waa inaka sugi la amnigeena taasi waa arin dadku dhan ogyihiin amni haduuna jirina waxa kale oo dhan wadankan waa aragtay sida wax looga qabto marka arinta amnigu waa arin u baahan wax laga qabto muwaadinka Soomaaliyeed hadda muwaadinka Soomaaliyeed ma codeeyo laakiin muwaadinka Soomaaliyeed aad rabto inaad magaciisa ku gaarto xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu isweydiinayaa ajandaha siyaasadeed ee u yaalo Dr. Cabdiraxmaan waxaan filayaa khudbado tiro badan ayaad joodisay qoraallo badan ayaad suubisay oo ayadoo faahfaahsan laga in karo laakiin si kooban ajandaha siyaasadeed Dr. Cabdiraxmaan uu rabo inuu xilka jamhuuriyadda ku gaaro ma inoo soo koobi kartaa waa ku soo koobi karaa ajanduhuna wuxuu la socdaa kuwan lahaa madaxweynayaashii hore 5 arrimood ay ku guuldareysteen amniga waan ka hadlay waa ku dhaqsanayaa ma si degdeg ah waxa loo baahan yahay wadankan garsoor madax bannaan oo cadaalad oo dadka u siman kama jiro sababtu waxa weeyaan madaxweyne kasta waxa la leeyahay hadaan maxkamada dastuuriya iyo waxa sameeyay iyo cadaalad madax bannaan adiga sharciga ku qabanaya kugu qaadaya marka dastuur iyo cadaalad darra ka jirta iyo sharci la'aan baa ka jirta dhab oo wadanka ka jirta waxa kale oo ka jira musuqmaasuq aad iyo aad u baahsan baa ka jiro ilaa intaas oo dhan wali ina daba socda waxa kale oo ka jirta shaqo la'aan xoog leh dadkii ummadii Soomaaliyeed oo dhan wadanka oo dhan runtii aad iyo aad shaqo la'aan niyad jab oo dadku dhan wadanka badaha aadaan isku qaadaan waa la socotaa ummadaas oo dhan iyo arrimaha kale oo iyaguna la xiriira oo runtii wixii kale oo ku saabsan maaragtay hadday noqoto waxa la yidhaaho environmentka ama deegaanka ama waxaas oo dhan abaar soo noqota iyo waxbarashadii iyo cilmi dadkeenu waxa weeye dunida oo dhan qarniga cilmigan ku jirna marka waxa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay wax la baro oo waxbarasho iyo caafimaad iyo waxa helaan arrimahaas oo dhan anigu waxba lagama qaban waayo arinta damaca siyaasadeed oo lacagtii soo gashay siyaasad iyo baarlamaan saad ugu laalushtaay waxaasay uga baxdaa marka focuskii ama mudnaantii baa ka lumay baan u arkaa taana haddaan wax laga qabanin waa adagtay marka anaku
haddii ilaahay subxaana watacaala fursadna siiyo waxaana ku qorantahay annaka website-kayaga oo ah badbaado qaran.org waxaa ku qoran haddii eebeedmo oo fursadda aan helno mudnaanta iyada koowaad ma aha in nala soo doorto in dib naloo soo doorto mudnaanta koowaad waxa weeyaan in wadankan runtii dadka Soomaaliyeed la siiyo fursad ay ku codeeyaan hal qof hal cod arinta ugu weyn oo iyaduna runtii aan igu kaliftay inaan sharaxo ummadda Soomaaliyeed doorasho dadban baan ku jirnaa ilaa carta laga soo bilaabo doorasho dadbanna dadkayna daawanayo oo khiyaartayna daawanaysa doorashada hadda ka socda xamar iyo boobka iyo foolxumada ka socota waa tii ugu xumeed oo midba kale ay way ka sii darneen laakiin hadda waxa jooga mar raba inaan ku dheeraado arrimahaasi waxay salka ku haysan waa musuqa waayo qofkii madaxweynaha kursiga markuu ku fadhiisto wuxuu leeyahay maxaan igu kalifayay inaan hal qof iyo hal cod intaan idho Soomaali weyn oo dhan codeyso markaa dee ma huba inay dooranayaan waxa iga fudud anigoo lacagtaan haysto ama hatii dhaqaalaha loo siiyay Soomaalida ama dawlado kale oo raba inay nagu wadankeena bahdilaan oo ama wadamada Carabta marka lacag baan haysta xildhibaano kooban baan laaluushi karaa ismadoodaan lacag siin karaa guddigood cudurkaasi wuxuu keenaa damaca siyaasadeed in taladii ummadda Soomaaliyeed ay banaanka ka joogaan oo sanadkii dhowr iyo 20 aan marano wadankanna meel ma tagi karo wadanka waxa iskale ummadda Soomaaliyeed baa iskale marka barnaamijkaygu adoo raali noqonay waan ku dheeraaday barnaamijkaygu waxa weeyaan anigu arrimahan rabnay inaan wax ka qabano number 1 waxaan rabnaa wadankan garsoor madax bannaan in loo sameeyo waxa naga go'an xukuumaddii Xasan Sheikh iyo xukuumaddii Farmaajo labadoo waxay ballan qaadeen maxkamadda dastuuriga aan sameynana annagu maxkamadda dastuuriga waa naga go'an tahay waxa kale oo naga go'an oo muhiim ah in runtii ciidamada Soomaaliyeed dib loo la sugu dhafo oo hal ciidan noqdo ciidamadan faraha badan oo kala commandos kala duwan oo siyaabo gooni oo siyaasadda loo isticmaalo inaan ka saarnaan rabnaa waxaan rabnaa ciidamadan Turkiga tababaraan oo maaragtay ilaa 3 danab gaashaan iyo duufaan waxa kale aan doonaynaa ciidamadan maaragtay Mareykanku tababaro hal ciidan hal commandos hal wadan baan nahay ciidamadii la yaqaan xoogga dalka Soomaaliyeed inaan mideyno markaas sameeyno tababaradan iyo ciidamadii hadda la dhisay xukuumaddan waqtigeedu jooga fursad bay heshay laakiin say dadku ka warqabaan ciidamada xoogooda oo dhan siyaasadaha loo isticmaalaa meel baa wax ka dhaceen qolal raba kuraasin laga qaato ciidamada loo diraya waa ciidamo aan ka amar qaadanin taliyihii ciidanka iyo wasaaradda difaaca marka arrimahaas oo dhan waa arrimo siyaasadeed annagu ajenda siyaasadeed ma wadano haddii 4 sano dhibaatooyinkan wax ka qabanno oo aan dibna loo soo dooran oo laga yaabo dad badan oo dana khaas leh ama ganacsi leh ama siyaasad leh laga yaabo inaanan maaragtay raali gelin go'aanadan qaaday oo la soo dooran waayo waxba kama qabno haddii aasaaskii iyo saldhigii ummadda Soomaaliyeed aan u sameeynay dawladdii taasaa noogu muhiimsan baan ugu arkaa inaad gaarto waxaa jirto arinta khayraadka dalka waxaad soo hayd wasiirka khayraadka iyo kalluumaysiga khayraad badan buu dalka leeyahay oo kalluunka uu ka mid yahay waxaan dib kaga sheekeyn doonaa siyaasadda iyo siyaasadda ku wajahan khayraadka dalka laakiin intaan u gada gelin xilliga aad wasiirka khayraadka iyo kalluumaysiga ahayd waxaa dhacay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda okay xilliga aad wasiirkaasi ahayd waxaa dhacay qadiyad ku saabsan kalluunka tuunaha inuu haban filaya shirar la xiriirana way dhaceen oo jasiiradda Seychelles ka dhacay arinta muwaadinka Soomaaliyeed ma u sharaxi kartaa wixii ku geedaarma oo aan wax badan lagala socon waa gartay haddaan soo ururiyo Soomaaliya dadkeenu say uga warqabaan ummadda Soomaaliya waxaan nahay nidaam federaal baan nahay nidaamka federaalka macnaheedu waxa weeyaan waxa khayraadka wadanka inay wada qaybsadaan ay tahay dawladda federaalka iyo 5 maamul goboleed marka sharcigeena iyo dastuurkan hadda ku meel gaarku inoo yaala wuxuu leeyahay waa inay heshiis wada galaan 5 maamul goboleed ee wadanka ka tirsan iyo dawladda federaalka heshiiskaas waxa loo baahan yahay in qaybkii iyo percentage-kii loo kala qaybsan lahaa khayraadka ka soo baxa haday noqoto shatiyaal la bixiyo kalluumaysiga ama haday noqoto petrol iyo gas ama macdan laga soo saaro dhulka marka heshiiskaas waa heshiis dunidooda nidaamka federaalka maamulada iyo goboleedyada iyo federaalku galaa heshiiskaas la isku dayay xukuumadda Xasan Sheikh waqtigeedii in la gaaro khaasatan khayraadku waa laba waa kalluumaysiga iyo khayraadka badda iyo macdanta iyo petrolka marka anigu wasaaradii haddaan ahaa kalluumaysiga khayraadka badda waxaan isku daynay inaan heshiiska wada gaadhno oo ay wada saxaan 5 maamul goboleed markaas ka bacdi baa anoo wasaaradii federaalka jooga aan maraakiibta dunida shati siin kara dakhliina inagu soo gali kara
marka waxaa la isku dayay heshiiskan in la gaadho waqtigii xukuumaddii xasan sheikh waa lagu guuldaraystay annaguna dowladdii aan ku jiray markii bilowgeedii bil ka bacdi baan isugu yeeray madaxda wasiirada kalluumaysiga khayraadka badda ee maamul goboleedyada iyo federaalka sidaasi la eg waxaan isku daynay bal in aan isku dayno inaan heshiin karno waa ku guuldaraysanay isagana waxaan isku daynay heshiis ku meel gaadho oo tuunaha waa kagu qaalisan oo lacagta xoogeedu ka timaado tuunuhu waa guuraa weeyaan wuxuu soo maraa moogtay xilli buu soo maraa sanadkiiba mar marka waa marka la qabsado oo aad maaragtay kalluun fara badan soo maro tuunaha marka waxaan yidhi bal xilligan 2017kii xilligan oo kaliya heshiis aan wax kala dhaafsiisaneen si kalsooni aan u dhisno ama afka ingiriisiga confidence building measure aan ku koobno xilligan oo kaliya aan heshiis wada galno markaana heshiiskaasaan isku daynay tiina waan ku guul daraysanay kadib maadaama taas ku guul daraysanay waxay ahayd inaan Seychelles tagno oo marka aan heshiiska xamar ku gaadhno Seychellesna caleemasaarkii uu noqdo oo lagu saxiixayo shirkadihii dunida imaanaya marka maadaama shirkii xamar hordhaca ahaa uu guul daraystay sabab loo tago baan idhi Seychelles ma jirto oo aan maarta u tagno marka waxaan idhi waa inaan kasal gareena arrinta iyada على أي حال إن أو فشل بالدكتورة محوسالك كوهاي إن أو فشل صباح فشل ككاري سالك وحو كوهاي رونتي ساد وقتها شن معمول قبلات بيان ودن كانوا iyo dawladda federaalka badanaaba dawladda federaalku qaybta weyn ama maaragtay waaxda weyn ee dhaqaalaha iyada qaadata khayraadka maadaama wax kasta mas'uul ka tahay caafimaadkii waxbarashadii militarigii beerihii wax kasta marka waa in la siiyaa maaragtay waaxda weyn dunida federaalka badanaaba ilaa 55 ilaa 60 dawladda federaalka qaadata inta kalena waxa loo qaybiyaa maamul goboleedyada loo qaybiyaa marka maamul kamida shantii maamul goboleed baa waqtigii xasan sheikh xukuumaddiisii tiri waxaan rabnaa sad ka badan maamulada kale oo dheeraada oo u dhow ka federaalka waa in la siyaabay dheh marka dee taasina wax aqliga gali kara maaha dawladda federaalka sadkeeda u dhawaan maamulkaasi kuu ahaa ma u sheegi kartaa muwaadinka Soomaaliya waaya maamulkaas waxa maamulka Puntland buu ahaa runtii maaragtay oo yiri anagu waxaan doonaa percentage ka badan bay dalbanayeen mid u dhow dawladda federaalka marka sidaas uu shirki ku baabay hore loogu baabay tii dambana sidaas ugu baabay markii la soo yimid ee Muqdisho markaan xukuumaddeedii marka maadaama go'aan laga gaari kari waayo oo xilligaas oo qura la rabay heshiis jiro ku meel gaara oo xilligan oo qura si kalsooni loo dhiso marka waxaan idhi looma baahna inaan Seychelles tagno oo heshiiskii de marka caleemasaarkii iyo shirkadihii gadanayay shatiyada yimaadaan marka waxaan go'aansaday inaan cancel gareeno aanan aadin ba Seychelles marka waxaan joognaa bisha April Seychellesna qorshe waxa ina May bisha la dhaw bilowgeeda in la tago marka waxaan idhi farahan ka qaadanaa bal mar kale hal arko hadii Soomaali isfahmi karto qolooyinkan shirkada dhaqaalaha siiyo oo kamid tahay dawladda Mareykanka oo USAID ururka la dhaho iyo ururka kale oo qaramada midoobay la FAO ama FAO cuntada iyo maaragtay u qaabilsan beeraha u qaabilsan labada urur baa dhaqaale siiya wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda xanaanaha xoolaha iyo wasaaradda beeraha marka iyaga qayb ka ahaa wada hadallada aan joogno kor joogtay ka hayeen ama dad maaragtay qayb ka abay hayeen marka kuwaasa waxay yiraahdeen lacag $100,000 ah baan hoteelo iyo tigidho ku bixinay si loo tago Seychelles marka xamar laga dhaqaaqo heshiiska la saxeexo markaana Seychelles la tago lagu saxeexo marka maadaama shirki lagu gool daraystay waxaan maxaa looga baahay inaan aadno sabab loo aado laakiin waxay dhaheen lacag 100,000 aan bixin lacagtaas oo dhan waa khasaaroobaysa horaan u bixinay tigidhadii nooma soo noqon karaan hoteeladii waan qabanay wasiiro waxa si de maaragtay waa nasiib darre xal noo keen markaan fakaray oo aan ka fakaray waxaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xilligaana waa gaartay hawsha oo kaliya ku kuma ekayn hawshaana ay xil saareen oo waxay dhaaheen de inaad heshiis keentid oo waxaas oo dhan way ka warqabeen hawlahan qabanayay waa ogahay labaduba marka calaa xaal hadaan ku soo ururiyo Salebaan waxa weeyaan waxaan ku yiri hadaba maadaama aan shirki la tagayn oo wax lagu saxeexeen dad badan oo wasiirro cusub oo maamul goboleedyada iyo ku jiray baa jiray iyo wasaaradaha federaalka waxaan idhaha looga dhigo seminar oo tacliinta ku saabsan badaha iyo kalluumaysiga iyo sharciyada badda iyo waxaas oo dhan marka seminar ugu bedela baan idhi meesii lacagtu khasaaroobi lahayd oo loola ha khasaaroodo marka waxaan anigu sababaan u tago Seychelles ma garanayo hawlo kale ay waayo wax la saxiixaya ma jiro marka wasiir ku-xigeenkaygii baan u diray shirka inuu ka qayb galo sidoo kalena maamul goboleedyadu Soomaaliya dabeecado xun bay leeyihiin waxa kamida maadaama ay khayraadku kalluumaysiga batroolka yahay maamul goboleedyadu ma aaminaan
wasiirada kalluumaysiga kheyraadka badda wasiirka maaliyadda bay ku soo ladhaan oo yidhahaan ka qaybgal si lacagta iyo kugu hayaan oona kuwan maaragtay inuu aaminin marka shirka iyagii iyo kuwii xukuumadda xasan sheekhba laba wasiir baa joogay oo shirka arrimahan sidii heshiis loo geli lahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo kii maaliyadda marka anigu maadaama shirkii tagi karin ku-xigeenkaygii baan diray wasiir ku-xigeenkii maaliyadda federaalkana waxaan u dirnay iyakana Seychelles iyo 5 maamul goboleed wasiiradoodii iyo wasiirkii kale oo maaliyaddii iyo kalluumaysigii waxooda oo dhan baa isugu tagay Seychelles على أي حال واحد إن education علمي سيمينار يوعي قلم به ما سد حبرين وسعودوها ما ننتي لبعض بواحد كان قرشاء nimankii ururkan la yiraahdo USAID iyo kuwii UN Kofao waxay daba socdaan wali heshiis la'aantana la heshiis la gaadhin baa iyaga dhibasa dad badan oo saaxiibadooda kuwa shirkadaha galbeedka iyo Yurub oo lacag badan oo raba inay lacag raqiis ku qaataan shatiyadeena marka kuwiiba arintii dib u soo nooleeyay oo le waa in heshiis la maamul goboleedana dhinac waxay ka taagan inay shatigaasi helaan oo awood u yeeshaan biraan inay bixiyaan kalluunka dhamaan weynaan wada saxnaa shatiga wada saxnaa heshiiskii wada galaa marka waxay dhahan heshiis cusub bay u keeneen Seychelles lagu keenay annaguna inaan heshiis galama ahayn laakiin heshiiskii la keenay wuxuu noqday heshiis ay ku qoran tahay ay leeyihiin lacagta laga qabto dakhliga kalluunka ka soo baxay shatiyadiisa bangiga dunida loogu shubayaa Soomaaliya khayraadkeena inakaas kale bangiga dunida maxaa gelinaya lacagta iyo badda kalluunka iyo badda dunida maxaa u geenaya kuwaas World Bank waxa kale ku dareen sharcigii wadanka u yaalay kii badda ahaa bay bedeleen oo ahaa sharciga wuxuu ahaa ilaa 12 mile ama mailka badda oo la nautical mile xeebta laga bilaabo ilaa intaas badda dawlad goboleedka shati bixin kara laakiin waa shati hoose oo ay siin karaan maamul goboleed Soomaalida dadka Soomaaliyeed bay siin karaan laakiin 24 ilaa 200 oo ugu weyn oo la yiraahdo aaga dhaqaalaha ama special economic zone dawladda federaalka oo kaliya bixin karta marka ay heshiis la gasho maamul goboleedyada marka haddaan ku soo ururiyo runtii waxay bilaabeen dadkii iska fadhiyay Seychelles baarlamaankii Soomaalida ay noqdeen sharcigii ummadda Soomaaliyeed sharcigii kalluumaysiga badda inay bedeleen waxay dhaheen maamul goboleedyada meeshii 12 nautical mile lahaan lahaayeen waxay dhahan konton baan siinayna bay dhahay maaragtay xeebaha ay ku shatiga bixin karaan sharci baa wadanka baarlamaanka la baasgareeyay madaxweynaha saxay deeyo kuma bedeli kara taa way sameeyay iyo lacagtii ka soo dhacdana bangiga dunida aan keenana khayraadkeena nakaas kale bangiga dhaxayna ugu soo dhacay waxa markaa la kabanay waxaan wax shaqeynaya maaha in waxa la galaba ma ahayn marka waxba kama jiro waa ku gacan sartay waa ku gacan sartay oo wali waxaan dhigeen hadii kale seminaarku marka waa inoo dhamaaday waxaan ka hadlaa ma jirto ala ay xal shantii maamul goboleed baa FAO iyo USAID waxay u ballan qaadeen in midkiiba gobol kasta inay $1 million siin doonaan wax loogu qabto marka ay yiraahdeen saxiixa iyakii marka iyakii baa hadalkoodii qaatay way saxeexeen heshiiskii aan kula khaldanaa oo waxa soo dhan aan diiday ba intay wada saxeexeen shantii maamul goboleed ba waxa la baneeyay meeshii dawladda federaalka oo wasaaraddeedii iyo tii maaliyadda la baneeyay ميديا لو قيبي ملك كسر لو قيبي أو شربة على جلاي أساس لو ما ميديا باللو قيبي واحد اللي دولة فدرال كدي دولة فدرال كدي ده الشيء كان لدغاج إيه لدغاجو مركا واحد كانت بوغ وين يودن كودن لبس الحبري ودن بوغ كجيمي ولا لا دولة فدرال كا بالله قال مثلا maamul goboleedyadii dawladii federaalka horumarkii Soomaaliya hortaagan iyo kana garanaynin waxa ku sheegay oo la wax inta meel ka dhaco bahdilo ummadda Soomaaliyeed ana u qalmin marka waxay isku dayeen in aniga pressure saaraan si aan u saxeexo baartay waxa soo kala sameeyay anna waa ka diiday masaxayaan ku yiri arintii buuq weyn bay keentay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihi oo uba maleynayay in shirkii la kansal gareeyay oo maartay anaguna maartay go'aan iska gaaray in seminar la bixiyo alaa xal labadoodii bay dunidii oo dhan la soo hadalay dawladihii waaweynaa oo dhan iyana way yaabeen markii dambe loo sharxay arimihii waxay leeyahay anagu waxaan taageeranaa wasiirka waxa uu runtii isaga garanaya isaga roole labadooduba mudnaanta la sharafta la habay keeneen marka arintii muddo dhan bay runtii dunida oo dhan marka keento la dawladda federaalku badanaaba sida ka warqabtay Soomaaliya waxa lagu eedeeyaa dawladda federaal
gobolka waa dabeecadihii dowladii dhexe lagu yaqaanay oo kaligii tashadaha oo maroorsiga bay ku eedeeyaan maamul goboleedyadu marka imikana waxay leeyihiin iyakaa diidan oo dabeecadahoodii bay rabaan inay wax kasta noo taliyaan iyadoo xaqiiqadii jirta aan kuu sharaxay waxay ahayd calaa hal arrintaasi waxay keentay buuq weyn dad badan oo Soomaaliya joogana wali marka ay warka maqlaan waxay leeyihiin buuqii waaga dhacay ee wasiirkaasi maxay ahayd dhibtii marka waxaan filayaa muwaadinka Soomaaliyeed inay fursad ay siisay aan u sharaxay dadka aad baa mahadsantahay muwaadinka Soomaaliyeed aad buu u fahmay arrinta iyada ahna waa saxiixaaga wuxuu qariraya masiir ma ahayn mid ku daba socon lahaa ayuu ahaan lahaa su'aalo badan laga weydiin lahaa oo saan ka duwan laakiin waxaad badbaadisay masiir dhan ayaad badbaadisay khayraad dhan mudana musharax madaxweyne waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aragtidaada ku wajahan dhalinta Soomaaliyeed maadaama ummadda Soomaaliyeed 25% waa dhalin baa la dhahaa bal aragtidaada ku wajahan dhalinta oo aniga maanta ka fadhiya maxay tahay waa mahadsan tahay runtii saad uga warqabtid aayaha wadan kasta dadka iskale oo ayisa iskale oo rajada raadinaya waa dhalinyarada weeyaan aniga oo kaliya daadeedii raggii la mid ah waxa weeyaan haddii ugu bato 5 sano ama 10 sano ama waxaas oo kale waa laga yaabaa inaan runtii wax qabano oo u diyaarino wadankan Google Dig xukuumadeedu wax rabnaa Google Dig wadankan dhaqaalihiisii amnigiisii siyaasadiisii xasiloonadiisii doorashadiisii maxkamadihiisii annagu waxaan sameyn karnaa saldhigii maaragtay Google Dig waan sameyn karnaa ama foundation kan dhisana asaaska dhisana marka waxa ugu muhiimsan oo dunida oo dhan la isku dhaafay waa cilmi iyo maskax dunida oo dhan waxa la isku dhaafay waa cilmi iyo maskax waxaan ku jirnaa qarnigan 21 waa qarnigii cilmiga leeyahay wadamada dunida ugu horeeyo dhaqaalaheeda haysta oo kamid yihiin wadamo aan khayraad badan lahayn oo kamid yihiin Japan kamid tahay South Korea kamid tahay Singapore kamid tahay Taiwan kamid tahay wadamadaas oo dhan khayraad male laakiin kombiyuutarada iyo technology iyo waxaas oo dhan oo dadku gataan oo awood bani aadan bay haystaan awood bani aadan marka waxa aan rabnaa dhalinyaradu waxay u baahan tahay marka ugu horeysa in xirfadii iyo cilmigii ay wadankana wax ugu qaban lahaayeen dhaqaale ku soo saari lahaayeen marka waxa aan rabnaa waxa la yiraahdo human capital in marka waxbarashada aan xoog saarno dhalinyaradii dugsiyada ku jiray sidaad ka warqabtay Soomaaliya sidoo burburka u dhacay boqolkiiba haday ugu badato 20 ama 30 baa wax barta Soomaalida inteeda kale wax ma bartaan waxa laga yaabaa dad inay leeyahay sidee ku dhacday waayo iskuuladu waa private iskuulada Soomaaliya oo dhan marka dadkii dad qurbaha u jooga oo ehligood iyo lacag u soo diraan marka TV-yada daawatid waxaad arkaysaa arday qalin jabinaysa gobolada iyo magaalooyinka wadanka ku yaal laakiin taasi waa ku khiyaameynaysa waxa laga yaabaa khalad been ama sawir been inay ka tusto boqolkiiba 60 ama 65 ama 70 iskuulo ma tagaan waayo ma awoodi karaan lacag ay dugsi ku tagaan marka waxa aan rabnaa anagu marka ugu horeysa inaan khayraadka wadanku leeyahay ka hadlayna ama petrol ha noqoto ama wixii ka soo baxa waxa soo dhan iyo cashuuraha laga ururiyo waxaan doonaynaa sidii tacliintan helay oo kale anigu inaan horta cilmiga iyo iskuulada kor u qaadno tayada waxbarashada kasoo ardadii hadda wax baratay oo dhalinyaro sida adigoo kale jaamacada dhameeyay oo maaragtay aan hadda u baahneen in maaragtay iskuul iyo tagaan waxa aan rabnaa anagu inaan isticmaalo waxa la yiraahdo technology-ga dunida aan u jeedid waxa lagu shaqeeyaa waa sidaan ku waa casrigii cilmiga marka waxa la yiraahdo digital platforms oo ay kamid yihiin Amazon oo ay kamid yihiin maxaan ku dhahaa Facebook oo ay kamid yihiin Google waxa soo dhan macnaheedu waa maxay waxa loo baahan yahay dhalinyaradeenii oo cilmiga technology-ga taqaanay in dawladdu ay u sameeyso sidii wax la yiraahdo industrial park oo laga sameeyo Dubai oo kale iyo wadamo kale laga sameeyo waxa aan rabnaa meelo waaweyn oo maaragtay dadkii cilmiyada soo barto dhan dawladdu cubicles oo kale ay u sameysay si ay dhalinyaradu hal abuur u yeeshaan oo marka high speedkii korontadii wixii oo dhan u fududeeno marka wax kasta oo dunida la qabto waad ku dabaqi kartaa cilmiga haddaad rabtid inaad xoolo beera gadid oo khudradaada gadasid platformyaal baa iskaashata kasta iyo beera kasta loo sameynaya dadku meel kasta jooga halkaas ay ka arkayaan waa ka dalbanayaan waa gadanayaan saylad bay u sameynaysaa fudud oo waxooda dhan isbaraso dadkii u baahnaa dadkii soo saaray xoolihii baa la mid ah waxa la mid ah ganacsigii kala e-commerce baa ka mid ah waxa kamid ah dugsiyada iskoolada hadda joogtid oo kala ama jaamacadaha dawladda hoose maamul kasta wuxuu leeyahay magaalo iyo tuulo iyo gobol buu leeyahay waxay u baahan yihiin technology dad isdiiwaan gelintii dhulkii la bixinayay
marka wax kasta platform kasta waxa u sameyn kara dhalinyaradan shaqay abuuri kartaa dhaqaalaha wadankeena oo dhan ma kor u kici kara marka dhalinyaradu kaliya maaha inay fiiriyaan siyaasadii ay fiiriyaan inay ayagu dalka dhisaan oo wadanka oo dhan kiciyaan oo cilmigiisii oo dhan sameeyaan marka taa anagu waxaan rabnaa qayb weyn inaan ka qaadano oo aan ku qarno waxaan rabnaa arrimaha ay ka mid yihiin oo kale dhaqaalaha kalluumaysiga iyo maxaan ku dhahaa beeraha iyo xoolaha iyo ka laftooda waxaan rabnaa maalgashi inaan u ogolaano oo haddii ay rabaan inay kalluumaysato noqdaan dhalinyaradaasi in dowladdu dooniya casriya iyo meelo qaboojiyaal oo kale maaragtay la sameeyo oo marka loo finance gareeyo kuwii raba inay galaan marka meeshay doonayaan baan rabnaa inaan laakiin iyaku dad madax bannaan oo wax soo saara wadankana wax u tara laakiin daduna odhanaya markaan meel kasta taga waxay dadku yidhaahaan ba wasiiraad ka dhigasaa iyo waxay u arkaan dowladduba inay xafiis la fadhiisanaya tahay dunida waxa dhisa waa dhalinyarada dhaqaalaha iyo ka dhisna marka waxaan rabnaa wax intaa ka weyn baan uga hanweynahay fahankaasi khaldan musharax way jirtaa oo ah inay dhalintii ay kaliya siyaasadda ama meesha ugu sarreysa taa waa fahan siyaasadeed oo u baahan la fahan khaldan oo siyaasadeed oo u baahan in wax laga bedelo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mudane si kooban fariintaada xaaladda dalka uu hadda ku jiro ku aadan aragtidaada iyo ajendahaaga ku wajahan waa gartay waxaa laga yaabaa salaabaan dad inay leeyihiin dad badan oo murashaxiina jira maxaad uga duwan tahay adigu oo maaragtay kaga duwan tahay murashaxiinta kale anigu sidaan xukuumaddii xasan cali khayre bilowgeedii oo xukuumaddii madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ahaa raggii bilaabay baan ahaa wasiirka kalluumaysiga khayraadka baddan ahaa xil kaloo aan hayeyna waxaa golaha wasiirada waa 27 wasaaradood waxaa loo qeybiyey 3 guddi guddiga dhaqaalaha oo 12 wasaaradooda iyo guddiga bulshada iyo adeega bulshada iyo guddiga amniga 12 wasaaradood maadaama dhaqaalaha iyo waxa soo bartay anigu waxaan markaa xoghaynta u ahaa madax u ahaa 12 wasaaradood guddiga dhaqaalaha ku saabsan marka arintan diin cafiski arrimo badan oo dhaqaalaha wadanka xog badan baan ka hayaa dhaqaalaha wadanka iyo maaragtay oo kala duwan wasaaradeeda quraan ku koobnay marka intaan dawladda ku jiray waxyaalo badan baa aniga iga baxay oo runtii aan ogaaday anigu xilka waxa la iga qaaday maaragtay haddaan hal daqiiqo ku siiyo waxa jira maraakiib sharci darro oo wadankeena maamulada mid kamid ah maamul goboleedka shati beeno aan sharci darro siin jiray markaana maraakiibtaasi waxayna laga xadaa badda markasta oo kalluunka sharci darrada ah 600 milyan baa sanadkiina laga dhaca marka maraakiib badan oo dambiyaal loo haystay oo sharcigeena jabisay waan ahaynba biyahayna inay soo galaan baa maamul kamid ah maamul goboleedyadeena ugu xusiyey inuu u ogolaado shati inuu siiyo shatigana awoodba uma lahayn saan hore kugu sharci darro saan kugu sheegay shatiga waxa la saxeexi karaa marka heshiis wada galaan 5 maamul goboleed iyo dowladda federaalka iyadana taasi jirin bay shatiga bixin jireen haddaan soo ururiyo hadalkaygii maraakiibta markaan ogaaday inay sharci darro ku maaragtay lagu siiyey mid kamid ah oo wadanka Thailand la yiraahdo maraakiibtaas oo soo galaya baa dowladda Thailand ii soo sheegtay in markabkaas oo kalluun badan oo sharci darro maamulka goboleedkaas shatiyada siiyay ay soo sheegeen markaana sharci baa jira inay ku saxiixanay Soomaaliya oo qaramada midoobay wadamo badan saxiixeen oo ah wadankii kalluunkiisa sharci darro looga soo qaato wadamada kale baa u qaban kara haday u soo cadeeyaan heshiiskana signatory ka yihiin inay u qabtaan hadii inakana laga soo xado wadankeena wadan kale ay dekadooda galayaan way noo qaban karaan anoo sharciga cuskanaya markabka waan qabtay markab lacag ilaa 5 ilaa 6 milyan kalluun siday markaan qabanay maamulkan kula maamul goboleedkii siin jiray baa markaa u yimi madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaraheenii federaalka u yimi oo yiri wasiirkaasi maraakiib aan anagu leenahay ganacsigayga waxaas uu naga qabtay naga joojiyay waxaan doonaynaa markabka in loo sii daayo markabkaasina saan kugu sheegay sharci darro ah waxaan wado dhan على حال هدان soo ururiyo waan diiday anigu inaan markabka sii daayo sharciga in la mariyo ku go'aansaday marka arimaha iyo arimo la xidhiidha darteed mabaadi'a oo anigu arinta qaranku inay ka hormarsan tahay shatigan la bixinayo maamul goboleedku Soomaaliya waa waxa ay ku qaadanayeen oo jeebka ku shubanaya ma aha lacag soo gaadhisay dadkii ama gobolka joogeen على حال horta dawladda mabdaas aan uga tagay anigu waxa kale aan ku sheegay waxaan door weyn ka ciyaaray deen cafiska oo laba qaybood oo waaweyn inta ku jira guddiga dhaqaalaha oo ka wakiila shirka IMF iyo World Bank adiga wasiir Bayle baa tagi jiray marka taana wax baan ka qabtay heshiiskii mar dambe oo aan sanadkii 2018
maamul goboleedyadii waddanka intaan madaxdoodii u yeedhnay waxaan saxanay heshiis kalluumaysiga in la qaybsan karo wala sharciga waddanka u yaalla kaasina waa guul bay ka mid tahay marka haddaan hadalkayga soo ururiyo anigu waxaan ahay intaan xukuumadda ku jiray go-aano badan oo adag oo masiiriya baan sameeyey oo waddankan runtii aayihiisa ka horumarinaya wixii shakhsiga haddaan doonayo wasiir inaan ahaado iska sii fadhiyo maraakiibtan waa iska sii daayo xilkaagiisa aad u haysatid kuwaasoo kugu dhaliyay inaad xilka madaxweynaha isku soo sharaxdo markaana dadka uu cadeynaya haddii aan anigu fursad helo waxa weeyaan mudnaanteeda kuwaad horena waa layga arkay sifay kaasii karta ama sawir inaan noqon karo qof ayaha waddanka iyo danta waddanka ka hormariya dantiisa shakhsiga waxaan rajeynaya anigu dadka Soomaaliyeed baa go'aanka dambe iska leh laakiin inay sawir ama sifo ka tusi karto haddaan xilka helo inaan noqon karo qof runtii danta waddanka mudnaanta ku warsiinaya oo ka soo baxo mabaadi'da iyo mowqif taariikhi mowqifta hore u qaadatay ku salaysan دكتور aad baan kugu mahadcelinaa musharax madaxweyne ahna hogaamiyaha xisbiga badbaado qaran waxaan idinkaga mahadcelinaa daawashadiina qiimaha badan waan jecleen inaan waxyaabo badan aan kala sheekaysan oo qarsoon doctorka waxyaabo badan ayaa ku duugan laakiin ciddii rabto in ay ogaato faahfaahin dheeraysi ogaato ha gasho badbaado qaran webkeeda ha gasho daawadayaal intaan ka gaarayno barnaamij kale iyo marti kale oo gaar waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo